caawa toddobadii fiidnimo waxaa qof naftahaliga ay isku qarxiyay baabuur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday ilaahay mahadiis gudoomiyihii oo caafimaad qaba dhaawac yar baa gaaray wuxuuna ku jiraa hadda isbitaalka gacantana lagu hayaa dadkii kalena dhaawacyo fudud baa gaaray waxaa halkaa ku dhintay oo kaliya qoftii naftahaligaha ahaa waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto cidii ka dambeysay assalaamu calaykum waraxmatullaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin sida maayarku idin sheegayba maanta waxa ka dhacay runtii magaalada Garowe shil aad u foolxun oo uu geystay qof naftiisa haligayay oo isku qarxiyay gudoomiyihii gobolka Nugaal iyo rag kale oo ka agdhawaa dhakhtarkii baan hadeer ka nimi gudoomiyihii waan soo aragnay saalada qaliinka ayuu ku jiray dhiigagna waa loo shubayay dhaawac madaxa ka soo gaargaaray baa jira laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ka kaco oo iska fiicnaado sida ugu dhaqsaha badan dadka kale ee dhaawacyo soo gaaran aad ba u fiicnaayeen iyaguna xoogaa yar oo shooga mooyaane iyo xoogaa xagtima ah mooyaane aad iyo aad ba u fiicnaayeen waxaan rajaynaynaa kulligoodba inay dhaawaca ka kacaan cidii falka geysatayna ciidamada amniga iyo cid ay qusayso sida ugu dhaqsaha badan inay u soo qabtaan baan rajaynaynaa waxaanu ugu baaqaynaa dadka reer Garowe iyo dadka reer Puntlandba inay si fiican ula shaqeeyaan ciidamada amniga ee ku hawl jira ku guda jira inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay ninkan isku qarxiyay maanta baabuurka iyo madaxda waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland ay indhaha ku hayn doonaan falalka argagixisada ee ka socda iyo dadka looga shaqeeyay yahayba in ay u soo gacan gelin doonaan wixii information ah ciidamada amniga wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rahiim sida gudoomiyaha degmada iyo wasiirka caafimaadka Puntland ay Xuseenba caawa fiidkii waxa jiray qof naftahaliga oo isku qarxiyay gudoomiyihii gobolka Gujir iyo taliye ka tirsan booliiska Puntland oo horey u ahaan jiray taliyaha qaybta gobolka Nugaal iyo meesha uu isku qarxiyo ahayd meel shaaric ah oo keentay in xataa uu ka soo gaaro dhaawac muwaadin kale oo meesha marayay sida wasiirka caafimaadka iyo gudoomiyuhu sheegeen gudoomiyaha iyo labada muwaadin ee kale ee dhaawac soo gaaraba waa fiican yihiin xaaladoodana hadda gacanta ayaa lagu hayaa oo lagu wada dabiibayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay maaragtay u bogadhayo oo xaaladoodana caadi ku soo celiyo sidaas la mid ah waxa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo cidii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyay macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil inta ka dheeriya sida la xusayba waxa laga rabaa dadka reer Puntland meel ay joogaanba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado in loo diyaar garoobo hadii la hay'ad in la iska dhaciyo oo meel looga soo wada jeensto isla mar ahaantaasna inay dadku la wadaagaan hay'adaha amniga booliiska iyo hay'adaha kala duwanba waxa la wixii ay xog hayaan ee arrimaha la xiriira la iskana kaashado dawladana hadii la hay'ad waxa ka go'an in arrimahan ka dhacaya dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimadda Garowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland hadii la hay'ad ay nabad ku noolaadaan aad iyo aad u mahadsantiin gudoomiyaha xaaladiisu way degan tahay hadda waa la tacaalayaa dhakhaatiirta ayaa kula jira wayna degan tahay waxaan wasiir laga yimaado gudoomiyaha iyo labada ruux oo kala sheegteen iyo qofkaasi ismidaamiyay wax ka khasaara ma jiraan nafeed ilaa hadda baaritaan ayaa socda laakiin wixii meesha ka dhacay wixii ka dhashay waxay ahayd in qofkii naftahaliga ahayna uu meesha ku dhintay dhaawaca saddexda qof gudoomiyaha iyo taliyihii hore iyo qof kale muwaadinana uu dhaawac ka soo gaaray